gudoomiyaha maxkamadda ciidamada qalabka sida qaybta galmudug gaashaanle dhexe cabdulaahi abuukar xasan oo weheliyo xeelaalyaha maxkamadda ciidamada qalabka sida ee qaybta galmudug gaashaanle sare cabdulaahi maxamed muuse kayse ayaa maanta kormeeray saldhigga booliiska degmada gaalkacyo ee galmudug halkaasi ay kula hadleen saraakiisha iyo ciidamada booliiska gaalkacyo ee galmudug gudoomiyaha maxkamadda ciidamada qalabka sida qaybta galmudug gaashaanle dhexe cabdulaahi abuukar xasan ayaana amar ku siiyey ciidanka booliisku inay xoojiyaan howlgalka lagu ciribtirayo argagixisada ee ka soconaya magaalada gaalkacyo iyo guud ahaan gobolka mudug. askartu waxay leedahay waajibaad qaran iyo xuquuqay leedahay. waajibaadka markuu guddo kadib ay xuquuqda timaada. sidaas darteed gaalkacyo waxay ka mid tahay deegaanka galmudug waana meelaha dhibka ugu badan ee shabaabku ay ka jiraan hadda oo aad arkayseen kuwii la qabqabtay dhankan gediga kale loo waxeeyay aad arkayseen waajibka idin saaran waa inaad la dagaalantaan argagixisada ku dhex nool guud ahaan geyiga galmudug gaar ahaan saldhiggan aad ka tirsan tihiin ee ku yaalla gaalkacyo dadkay leynayaan waa in aad baratiin ood ogaatiin meelaha ay galaan oo ay ku dhuntaan oo ay ka mid tahay goobaha harqaanlayaasha iyo hilbaha iyo meelaha lagu gado hilbaha lagu gado iyo muxuu ahaa dukaamanka iyo shaqooyinka ugu gaari gacanada iyo meelaha ay u badan yihiin oo inta ayagu lacag shabaab soo siiyo yaa lagu muxuu ahaa ninka la yiraahdo amiis loo saaraa markaasaa la yiraahdaa meelaha wareeji beec ahaan u wareeji maayo xog uu raadinaya waxaa la rabaa booliisku inuu ogaado xogta dadweynaha waa shayga ugu muhiimsan booliisku maadaama uu ku dhex nool yahay shacabka waa inuu ogaadaa xogta dhabta ah ee dadweynaha uu asagu ilaalinayo dhex joogo dadweynihii uu ilaalinayay uu dhex joogo waxaa ka mid ah shabaabkii kuwan hadda sheegayna waa booliisku waxaa waajib ka saaran yahay inuu ogaado dembiga intuusan dhicin iyo markuu dhacana uu ka daba tago. dhinaca kale gudoomiyaha maxkamadda ciidamada qalabka sida qaybta galmudug ayaa ka hadlay isticmaalkii ka ganacsiga maandooriyaha oo tilmaamay inuu qayb ka yahay falalka ammaan darrada abuuraya isagoona ugu baaqa ciidamadu inay gacan bira kala hortagaan cid kasta oo lagu arko ka ganacsiga isticmaalka maandooriyaha isagoona sidoo kale ku booriyay ciidanku inay iyaguna iska ilaaliyaan bulshadana ka ilaaliyaan dooriyaasha magaalada ka buuxa ee dadku intay cabaan urisaan dadka maandooriyaha cabana aad soo xirxirtaan dhammaantood. cabdirasaaq maxamed axmed warbaahinta qaranka Soomaaliya gaalkacyo.